fiiri aabbahan waxa uu ku dhahay dilaayga wiilkiisa. qisadan waa mid saameyn leh aadna u murugo badan. waa qisada ninkan cafiyey wiilkiisa ninkii dilay. waxa uu muujiyey mid ka mid ah tusaalooyinka ugu waaweyn akhlaaqda wanaagsan oo diinteenna islaamka ay meel sare geysay markii uu dhahay aniga uma xanaaqsanin wiilkan ee waxaan u xanaaqsanayay shaydaankii ka dambeeyey in uu dhaco dilkan. sidaa ayuu dhahay aabbahan muslimka ah ee akhlaaqda wanaagsan intaan lagu xukumin 31 sano. dilaayga wiilkiisa lagu magacaabo Salaaxudiin waxa uu ahaa shaqaale dadka biidsada u geeya. inta aysan garsooradda ku dhawaaqin xukunka aabbihii ayaa ka dhaxgalay. waxa uu sheegay inuu cafiyey dilaayga wiilkiisa sababtoo ah iscafinta diinteenna islaamka qiimo weyn ayay u yeeshay. intaana arrinta kuma ekeene ee waxa uu tilmaamay dareenkiisa isagoo sheegay inuu dareemayo xanuun marka uu soo xasuusto sida loo dilay wiilkiisa. laakiin si kastoo ay ahaato uma xanaaqsano dilaayga wiilkiisa ee waxa uu xanaaqsan yahay shaydaankii ka dambeeyey. runtii sida uu muujiyey aabbahan dareenkiisa dhammaan dadkii goobta joogay way ilmeeyeen. xitaa garsooraddii ilin ayay isku celin weysay waxayna codsatay in wax yar la nasto. dilaaygiina waa uu ka shallaayey arrinta uu sameeyey. waxa uuna codsaday inuu gacanta u taago aabbaha si uu u salaamo. laakiin arrinta la yaab kale aabbihii ayaaba laabta geliyey dilaayga wiilkiisa si saa'id ah ayayna u saamaysay gacan ku dhiiglihii. laakiin nasiib daro ma jirto wax uu samayn karo. waxa uu naga mahad celiyey cafiiska uu cafiyey. halka dadkii kala socday labada reerood ee laabta isgeliyeen iyagoo murugo dareemaya. waxa uu dhahay aabbahan ku dayashada mudan cafintu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee qofka uu samayn karo. waana mid ka mid ah sifooyinka Allah. gafafka iyo dembiyada ka dhaca addoomihiisa ayuu u cafiyaa iyagoo samaynaya dembiyada kuwooda ugu xun. haddaba marka sidee addoon aan awoodi lahayn u cafin weynaya addoon kale? runtii inuu cafiyo ama uu dalbado in loo xukumo uma soo celinaysa wiilkiisa. laakiin in la cafiyo dilaayga waxa ay ku beeraysaa bini'aadanimo. laga yaabay inuu ka toobad keeno waxa uu sameeyey dibna ugu laaban, ama in dadkaan islaamka ahayn ay ogaadaan wanaagga diinta islaamka. waad ku mahadsan tahay. la wadaag asxaabtaada.